السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وحان الله يا صباح وناكسن مالين وناكسن qof walba meesha uu joogo iyo mansabkiisa iyo magaciisa ku salaamaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta qofku waagu u bariyay alxamdulillah qofkii kaleetana oo wali soo kicina Ilaahay asagana samaha ku soo kiciyo inta xanuunsan Allah caafiyo asxaabay ilaa shalay waxaa baraha bulshada tam uma helin waxaa baraha bulshada yaalay ninkan la yiraahdo Cabdirasaaq Teera oo aan ka dharagsanahay wuxuu yahay run ahaantii Soomaalidu waxay tiraahdaa hug hore ayaa hug damba kicisa waxaan maanta ma cusba waa 3 years ago waa 22 maalintuu qoray waa 22 November 2021 wuxuuna ku dul qoray hooyo qaali guhaad walaashii qaali guhaad waa hooyo ana hooyaan ahay sida gabadheeda loo dilay ayaa loo dilay curadkaygii iyo curad ku xigeenkaygii oo midna anigu aan dhalay midna dhib la'aan aan dhalay hooyo xanuunkeeda ay tahay waan dareemayaa meesha xanuunaysana waan dareemi karaa laakiin Teera ma fahmi karo Teera ma uu fahmi karo laakiin qofka fahmi kara waa hooyo curadeedii ama caruurteedii mid kamida weysay haday tahay gabar iyo haday tahay wiil intaba rag iyo dumar wixii Ilaahay siiyay hooyo weyday ayaa dareemi karta xanuunka waxaa dareemi kara gabar walaalkeed weyday oo gacanteedii midig weyday ayaa dareemi karta xanuunka qaali guhaad waxaa dareemi karta hooyo agoontooday oo saygeedii weyday caruurteeda aabahood oo saygeedii caruurteeda aabaheed oo kasoo akacay oo u xoogay oo xoog iyo xiniyaba u ahay hooyadii weyso asay iyo ololi oo hin uga dambeeyay ayaa dareemi karta qaali guhaad marna ma uu dareemi karo qof calooshiis la cayaara ma uu dareemi karo qof yacni iska hadlay ma dareemi karo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa shalay siiyay maantana ka qaatay hooyo la mid ahanahay Ilaahay baa shalay siiyay Ilaahay baa iga qaatay gacanka xaq daran iyo kibir iyo edeb darro ayaa dhiigooda loogu wada shabaxay waxaan ahay hooyo dareemi karta meesha qaali guhaad xanuunaysa anigoo aan ogolayn hooyo kasta oo Soomaaliyeed inaan ku jeejeeso ama qof muslima xitaa waxaanan ogolayn qofka gaalka ah in dulmi lagu dilo oo maxay ahayd laga qof kasta oo bini aadan in dulmi iyo edeb darro lagu dilo Teera tilkal ayaam ayay ku sugaysaa oo hinta yaxaas tilkal ayaam wallahi oo thuma wallahi dadka bilaashi u dhahaan u dhaartaan iska gantaantana waa aad dareemi doontaa ma garatay hooyadaana waxay dareemi lahayd markay adiga ku weyso ayay dareemi lahayd xanuunka qaali guhaad dareemayso oo anigu dareemayo oo aan la jiifo oo aan la dhul jiifo ma garatay ilmahaaga marka xaq darro lagu dilo oo gacanka xaq daran ay disho oo wixii dilayna aadan xaqoodii aadan helin oo maxay cadaalada ku horkeenin ayaa dareemi lahayd xanuunka qaali guhaad laakiin anigu waan dareemayaa sidii cadaalad u weysay ayaan cadaalad u waayay waxaa kaloo cadaalad waayay malaayiin hooyo ayaa cadaalad waayay qarsoodi maahan public ayay ahayd maalin kamaan hadlin habeen kamaan hadlin wax badan ayaan ka hadlay dhibaatada i gaartay iyo xanuunka i gaaray oo aan la socdo ama la dhul jiifo ma garatay maxay ahayd hooyana ayaduna waa sidoo kaleeto iyadoo waxay uga duwaneed wiilkayga shacab ayuu ahaa wiilashayda waxay ahaayeen wiilal shacab ah loo shacabka dhiigooda lagu shabaxay oo farmaajo iyo aad u niikinayso ka daba niikinayso oo ilaa intaad uga timid halkaas oo 5,000 kugu siinay dhiiga qaali guhaad iyo dhiiga wiilashaydii iyo dhiiga hooyooyin badan oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyo odayaashoodii walaalahoodii aabayaashoodii lagu shabaxay dhiigooda way oo hin yaxaas haday tahay way ku sugaysaa insha Allah bi'inil kariimna waad sugaysaa waxa hadda loo soo celiyay oo 22 November in 2021 aflagaadadii aad geysatay waxa hadda maanta loo soo celiyay oo dib loogu keenana waxa weeye wax kale tamaane waa aflagaadada aad maanta wado oo hin yaxaas haday tahay ma ahan Ilaahay inuu markiiba ka aari waayay bacnaheedu oo Ilaahay uu markiiba ظلمiga aad sameynayso yani ilaahay wuu ku ciqaabi karay
ilaahay wuu kaa goyn karay, ilaahay wuu kugu sallidi karay kuwa aada gurbaanka u tumaysay. maxay ahaatay ninkii maxay ahaatay maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahay hogaamiyihii aad maxay ahaatay boorsada iyo ubada aada u waday, maxay ahaatay gurigiisa aad ka shaqaynaysay, $5,000 ku siinayay, kugu siinayay inaad Somaliland iyo gurigaagii iyo meeshaad ka timid aada caydo, inaad maxay ahaatay tira uu ku yiraahdo war dadka halkan ku jirana cay oo aflagaaday. saaxiib waxaa kaa keenayay waxay ahaayeen lacagta doolarka ee bilaashka ah ee aad qaadanaysay. maanaad fiirin, xataa waad ka xishoon weysay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaad ka xishoon weyday. waxaad isdhihi weyday waa hooyo, adna hooyo ayaa ku dhashay, iyaduna hooyadaana hooyo maxay hadday caddahay hadday